wasiirka horumarinta arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka Puntland Marwo Aniiso Cabdiqaadir Xaaji Muumin oo gaartay degmada Dhahar ee xarunta gobolka Highland ayaa halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. warkan waxa Dhahar inooga soo diray Maxamed Nuur Cabdi. wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland Aniiso Cabdiqaadir Xaaji Muumin ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Highland. wasiirka ay waxa soo dhaweynteeda ka qayb qaatay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda Puntland maamulka gobolka Kandegmada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaaladaasi kuwaas oo kaga hortagay meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada. intaas kadib goortii ay soo gaartay wasiiradu goobta soo dhaweynta ay waxay u mahad celisay mas'uuliyiintii iyo waliba bulshooyintii ku soo dhaweysay halkaasi. waxaana intaas kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada iyadoona munaasabad loogu qabtay guriga martida ee magaalada Dhahar. haddaba ugu horreynba waxaa goobtii munaasabada ka hadlay gudoomiyaha gobolka Highland Maxamed Faarax Ciise duqa degmada Mustafa Cabdi Aadan isuduwaha garabka haweenka ee gobolka Highland ka hore iyo waliba mas'uuliyiin kale. haweenka madaxda kale iyo anaga gobolka iyo degmada wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow gacan furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow maanta waxay noo tahay farxad weyn waxa meesha ka baxaysa meeshaas ومال الكويس أيوة كبحيسة ما أنت ومالين قالية ومالين تاريخ مدن فحن مرينا يا حسن كان حسن بجدونه وسيرة الوهريسي الدولة بطلانة واجتماع تقوكم هذه كودي يا مسكحي يا عالدي أتجلسين الكتب تقوكم كان عندك مدرسة بهار ومالين فرحان مدن يا بالكاغا ما هذا علينا قدم بعدين تكفون ساعات المسير سيدنا انا ولا شيء بالك بالك هلا وكل جنبيان مركنا بعد ما قشان سبيت هذا وما الاسكواش انتباه ما عمل اسكواش وعدتك الدكان واسكاله تكله وكتسم ما بتقول وأقولي إذا سويسي وأقولي إذا سحبان وأقولي وقولي بعد ما مركا عد كلا وسها قلت هذا صار ما جبت وأقولي وكانوا على سعودين وهذا كتعي كلامي وقدري ما ذكاس أكل شركة على هذا أنا محيم حركة كان لنا وسير ما أنت مع تاريخيا وحكى على حمبرينا وسير الأنسة ولقات في مدحوينها الدولة Puntland وإن الدينتها لقد دقوا إن وسير الأنسة في سيب لنتي مدحوينها وما أنت نرجعته مستقبل عنه وسير الأنسة ووسيرة دي أبوه الرئيسي وبيأتي وسيرة دي أبوه الرئيسي أنت كنا على أساس قولك هاي أنت بعد عيناتها إيمان فرحة سودويني قلبتني هذا ما نقول سودوينينا ayaa runtii sheegay meedii adduunka meel walba waa joogaa waana aragteen wadajoog iyo daljoog iyo Soomaaliya sanaagta iyo hayla waa soo dhaweyn yihiin Aniiso iyo inta ka waaweyn waa soo dhaweyn madaxweyne ku yahay iyo gudoomiyaha baarlamaanka tafadal baan ku leeyahay deegaanka waa deegaankeena bela kama jirto shidana kama jirto soo dhawaada waa noogu farxadnay wasaaradayadu ay ka hawlgasho gobolka Highland wasaarad kale oo ka hawlgasho maanta sida la isugu yimaada ma ay jirto aad baan u mahadcelinayaa wasaaradda iyada anigoo ku hadlaaya codka suduwa wasaaradda haweenka gobolka Highland waxaan leeyahay aad bay halkan wasaaraddu uga shaqeysaa. ugu dambeynna waxaa munaasabada soo xirtay wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland Aniiso Cabdiqaadir Xaaji Muumin iyaduna sheegtay inay u kurgaleysay xaaladaha bini'aadantinimo ee ka jira gobolka Highland gaar ahaan arrimaha haweenka. sharaf bay ii tahay inaan maanta halkan idinla joogo ilaahay go'ina waaxidka ayaan ku mahadinayaa arrinka inaan idin imaado waana jeclaa wasiiradiga horeeyay yimaadaan laakiin wixii aan Allah qadarin sideedaba ma dhacaan waxaan Allah ka baryayaa inaan noqon markii ugu dambeysay aan Dhahar imaado haddii mar walba la yiraahdo Dhahar ma aha meel la iban karana mar walba waan idin iman tawbaradan halkan ku qabsan waan isku wareysanaynaa waan ku dabaaldagaynaa wax naga maqanna malaha Dhahar waxay ka mid tahay meelaha ay Puntland ku xisaabtamayso oo xudunteeda oo halbowlaheeda waana meel nabad ah adduunkana waxa sheegaynaa in la iman karo. Maxamed Nuur Cabdi Jubaland TV magaalada Dhahar.